halkaad weli nagala socotaan waa laanta Soomaaliga VOA oo aad ka dhageysanaysaan Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waa kan wariyaheena Muqdisho Axmed Xasan Colaad. wacan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay doorashada hoggaanka ururka suxufiyiinta Soomaaliyeed oo in muddo oo ka dhex jiray khilaaf hareeyay dhammaan wariyaasha inta badan ku mideysnaa ururkaas. haddaba doorashadaasi qaabka ay u dhacday ayaan ku eegi doonaa xubinta dooda gaaban, waxaana igala qaybgelaya Raage Maxamed Nuur oo ah saxafi Soomaaliyeed iyo Maxamed Cabdi Cismaan Faradheere oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho. waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Cabdi Cismaan. Maxamed, toddobaadkan doorasho ayaad ka dhacday magaalada Muqdisho, qayb ayaad ka ahayd, bal ka waran doorashadaasi hoggaanka ururka suxufiyiinta qaabkii ay u dhacday ma ahayd sidii loogu talagalay? doorashada message toddobaadkan dhacday waxay ahayd doorasho xaqa oo cadaalad ku salaysan markii la fiiriyo sidii horay ay u ahaan jirtay. waxaana doorashadan ka qayb qaatay dhammaan ergooyin ka kala yimid gobolada Soomaaliya oo dhan sida Puntland, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed. waxaana ay ka wada qayb qaateen sidii ay u soo dooran lahaayeen hoggaan fiican oo maaragtay wariyaasha. marka waxaan isleeyahay waa doorasho xaqa oo cadaalad ku salaysan maadaama ergadan intaa leeg ay maaragtay doorashada ka qayb qaateen. waxaana doorashada ku soo baxay sida aad ogtahay marka si wanaagsan ay ku dhacdaa leedahay hoggaankii ururka suxufiyiinta. si wanaagsan ba u dhacday. raagahay bismillahi rahmaani rahiim. anigu waxaan qabaa inaan halkaas doorasho ka dhicin, maxaa yeelay nidaamkii iyo systemkii iyo sidii wax u socdeen ama wax loo qaban qaabiyey ama maaragtay doorashada laysugu codaynayay iyo habka ay wax u dhaceen intaba waxay ahayd hab aan nidaamka iyo doorashada iyo organisation ahaan iyo urur ahaan midna aan waafaqsanayn yahay. oo macnaha waxaad leedahay qaabka wax ku socdeen qaabkii ay suxufiyiinta ku mideysnaayeen ma ahayn qaabkii ay suxufiyiinta ku mideysnaayeen. waxa weeye Soomaaliya suxufiyiin badan baa joogta, xaqna waxay u leeyihiin tala midaysan iyo cod midaysan iyo nidaam midaysan oo markaasi ay kulli ku wada ganacsan yihiin, raallina isaga yihiin inay doorasho ku dhacdo, hoggaan cusubna oo ku soo baxo, kii hore oo hayeyna oo halkaasi oo ku tago. ma ahayn marka qaabkii hadda ay wax u dhaceen qaab. marka waxaad leedahay qaab wanaagsan ma ahayn oo rag baa wax la ordaya. ma ahayn qaab wanaagsan, waxay ahayd qaab lay maaragtay heshiisyo hoose ay jiraan nin dadka qayb la midabta kooray suxufiyiintii oo joogta oo caanka ah oo Soomaaliya in badan ka soo shaqeynaysay oo wadanka dhibaatooyinka iyo rabshadihii iyo wax walba u soo dulqaatay oo jooga oo cod ku leh golaha suxufiyiinta ayaan qaybtood ka qayb gelin. sababaha keenay waxay ahayd heshiisyo hoose iyo dadka suxufiyiinta qaarkood sheeganaya inay hoos hataa heshiisyo hoose aniga caawi waxa weeye hebel ka tanaasulaya, anna hebel baan magaranaysaa codka siinaya, anna hebel baan waxa weeye soo saaraya. waa rag isbaystale isbahaysi ahayd. waxa weeye oo kale waxaa la soo ururiyay dad aan saxaafadaba aan shaqo ku lahayn oo ah ururada haweenka, ururada dhalinyarada oo laleeyahay cod bay ku leeyihiin. taasina ma ahan waxa suxufiyiinta u qalma iyo wax golahooda magaranaysaa micna u keenaya. suxufiyiinta waa la yaqaanaa waxay yihiin waa journalistayaal Soomaaliyeed waa la yaqaanaa, kii horay iyo kii dambe iyo ka hadda ku jira intaba waa la garanaya. marka meesha kama muuqan. teeda kale waxa weeye dastuurkii baa la diiday in maaragtay suxufiyiinta ay ka wada qayb qaataan oo maaragtay wixii qalad oo ku jira laga wada saaro, wixii maaragtay lagu dari karo ama maaragtay la isku fahmi karana la isla arko oo guddiyo gaara iyo dad gaara iyo kuwa albaabada soo